DHCP server. هذا مقالكم حتوبر وياهي مقالكي كهري أو هاي DHCP server Dynamic Host Configuration Protocol. وحرك وصل شيء DHCP إنه ياهي Network Management Protocol oo loo isticmaalo in clients lagu siiyo IP address si automatic ah. Sidoo kale waxaan ku soo sheegay computerkaada inuu IP ku heli karo laba midkood asigoo isticmaalayo static ama DHCP. Muhiimadda uu DHCP leeyahay ah tusaale haddii aad joogto ama aad ka shaqeynaydo company 190 client ay joogaan 190 kaas client mid kastoo oo haysto computer kastoo wuxuu kaaga baahan yahay IP address. ma 190 IP gacanta ku soo gelisaa mise waxa sameynaysaa hal system oo ka caawinayo 190 kaas inay helaan IP. dabcan waxa adeegsanaysaa systemka ka caawinayo in dhamaantood ay wada helaan IP. haddaba xaggan waxa inoo yaalo server intana waxa inoo yaalo clients. dhammaan kuwan dhan waxa ku wada jiro IP addresses ay ku isticmaalayaan DHCP. tusaale computerkan waxa rabaa inuu helo IP address. si IP address uu helo wuxuu ku qaadan karaa ama static oo gacanta ku gelinaya ama waxa leeyahay DHCP. Fiiri markii aad doorto DHCP automatic wuxuu qaadan doonaa IP address. haddaba muuqaalka waxaan kugu bari doonaa habka DHCP server aad u sameyn lahayd. DHCP-gu wuxuu ka noqon karaa inuu noqdo server caadi ah ama inuu noqdo wireless kaada. laakiin anaga waxaan isticmaali doonaa server. daawasho aan hagaag ugu horreyn waxaan u baahanahay inaan helno server. serverka waxaan ka soo helaynaa inaan tagno any devices kadibna aan ka doorano server. computers waxaad ka soo helaysaa any devices kadib waxaad ku dhufanaysaa computerka aad rabto. sidoo kale waxaan u baahanahay laptop waxaan soo qaadanayaa laptopka. hagaag si aan iskugu xiro computerskan waxaan u baahanahay switch. switch waxaan ka soo helayaa any devices xagga hoose router waxa ku xigay switch. waxa soo qaadanaya 2960 switch waxa soo dhiganaya bartamaha. hagaag waxaan isku xirayaa serverkii switchka. si aan iskugu xiro waxaan tagaynaa connections kadib waxaan isticmaalaynaa copper straight through cable. hagaag waxaan isku wada xiri doonaa systemkeego idin. hagaag waxaan isku soo xiray dhammaan systemka u baahanahay in IP addresses ay helaan. hagaag shirkaddan waxaa aqoonsanaynaa inay tahay shirkad cusub waxaana haysataa 6 shaqaale. 6da shaqaale mid kastoo wuxuu leeyahay computer. total computerskeenu waxay noqonayaan 6. waxaa u baahanahay serverkan inuu IP soo bixiyo dhammaantood oo siiyo. waxaa ognahay computer kastoo hadda inuunan lahayn wax IP address ah. haddii hadda aan dhaho DHCP codsi ka dirso waxaa soo bixi doona number qaldan oo ah 169. 169 kan wuxuu cadeynayaa in DHCP-ga requestigiisa oo yahay mid failed ah. codsiga hadduu u dirsado inuunan heli karin. laakiin numberkan la soo siiyo waxaa loo yaqaanaa APIPA. APIPA computerkaada markuu dirsado codsi haddii uu soo waayo APIPA wuxuu u asaan gareynayaa codsi asiga qaas ah. hagaag ugu horreyn waxaan u baahanahay inaan u qorsheeno IP-ga aan sii lahayn. company-gan tusaale wuxuu soo iibsaday IP class B ah oo ah 132.168.0.0/16. company-gan wuxuu soo iibsaday IP-gan wuxuu u baahan yahay IP-gan kow inuu computerka siiyo inta kalena u qaybiyo computerskan. si aan sidaas u sameeyno waxaan tagaynaa serverka kadib waxaan ka tagaynaa desktop. ugu horreyn serverka waxaan siinaynaa IP address. ogow serverku DHCP-ga asigaa bixinayo. laakiin haddii aad dhahdo adiga DHCP qaado macnaheedu waxay tahay serverkaada inuunan bixi karin DHCP. si serverkaada u bixi DHCP waxaan gelinaynaa static IP. si aan u gelino waxaan adeegsanaynaa IP-ga inta ku soo xusno ah 132.168.0.0 ma sii karno. 00 haddaan siirno waxaan u jeednaa computerkeena inuuna leeyahay waa invalid wax la yaqaana ma ahan. so 0 waa networkgaada waxaan siinaynaa hostiga lambarka koowaad oo ah 0.1. ogow subnetka automatic class B asiga u qaadan doono uma baahnid inaad u qorto. class A class B class C waxaan kaga soo sheekeynaa networking protocols. hagaag inta markaa sameeyado wax kale uma baahnid oo bixinaa waxaan tagaynaa serviceska waxaan ka dooranaynaa DHCP waxaan leenahay ugu horreyn on
on markaa ka dhigto talaabada labaad DHCP-gaada waxaa u bixinaysaa magac hadday rabtid server pool ku dhaafanaysaa haddii kalena waxaad rabtaa ula bixi kartaa kadib default gateway-ga waxaa gelinaynaa serverka IP address-kiisu ahaa 132.16.0.1 DNS serverka adiga kaa go'an tahay inaad isticmaasho isla serverkaada IP address-kiisa ama inaad samaysato DNS adiga kuu qaasaa waxaa jiraan public DNS servers oo caam ah oo la wada yaqaano waa Google garee karta haddii aad rabto haddii kalena waxaad iska isticmaalaynaa Google DNS serverkiisa oo ah 8.8.8.8 hagaag DNS-ka markaa gelino waxa ogaataa inta wuxuu ku sheegi doonaa IP address-ka la qaybinayo meeshuu ka bilaabanayo IP address-keena wuxuu ka bilaabanayaa 0 waxa ogaataa 1 inuu qaatay serverka laakiin computers-ka waxaa la sii doonaa 2 iyo wixii ka badan tilaabada xigta waxaa iska jeegaraynaysaa subnet maskiga waxaa loo baahan yahay subnetka intuu ku jiro inuu match gareeyo ama uu la mid ahaado subnetka intuu ku jiro hagaag xaggan hoose waxaa u jeednaa inta qofood oo DHCP-ga IPC karo waxaa default noogu qoran 512 qof waa ka badi karnaa waa ka yaree karnaa uma baahnin labada meel kale waxaa leenahay safe automatic waxaa u jeedaa inuu noo soo galay xaggan hoose server pool magaca u bixina waaye IP-ga aan geline DNS serverka iyo wixii la midka ah hagaag kadib markii aad sad gareedo DHCP serverkaada waxay imaanaysaa client-gaada koowaad client-ka ku dhufanayda waxaa ka dooranaysaa IP configuration wuxuu joogi doonaa computerkaada static adiga waxaa dhihi doontaa DHCP markaa dhahdo inta waxaa soo geli doono information dhammaystiran ugu horeen wuxuu qaadanayaa IP address oo ah 172.16.0.2 inuu helo IP-gan waxaa u suurtageliyey DHCP-ga sidoo kale waxaa u jeedaa same subnet mask subnetkii oo DHCP-gan soo gelinaya meeshaan waxaa noo sahlanaanaysa computerska inay wadaagi karaan xogo computerradan oo dhan waxay qaadan doonaan DHCP server hagaag computer kastoo loo network-gan ku jiro wuxuu haystaa IP address-kaana waxay ka soo heleen serverkan waxaa ku programinay inuu qeybiyo IP addresses oo siiyo clientska hadda clientska waxay awood u leeyihiin inay xiriiraan si aan u tijaabino waxaan taabanaynaa P for Ben ama waxaan dooranaynaa bashqada kadib waxa fariinka diraya computerkan waxa u diraya computerkan xagga hoose waxa u jeedaa inay noo soo qoranto successful haddii aan u baahanahay inaan aragno packetska ama daatada sida u dhex maraysa network waxaa tegaynaa simulations kadib waxaa leenahay capture waxa u jeedaa fariinta inay ka baxdo computerkaada oo ay aaday switchka kadibna u imaatay computerkaada laakiin why markii computerkaada oo fariinta diro uu aadi waayo serverka uu ugu soo jawaabi waaye kadib uu diri waaye computerskan uma baahanin serverkana shaqaas ma qabto shaqadiisu waxay tahay kaliya inuu bixiyo IP addresses waxaa rajaynayaa inaad fahantay server iyo qaabka loo sadgareeyo waxaa ogaataa serverka caadigane in sidaan loo sadgareeyo